بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون درسينا ما أنت حكى باللابنا آيات بقول إيسديتن إيتضبات سورة آل عمران إلهي وحو ليهي وإذا أخذ الله أي واذكر حسن نبي محمد إذ وقت أخذ الله ألا أو قبطي أو قاضي ميثاق الذين كوي بلنكودي أوتوا لسي الكتاب كتابك لسي لولا بلمي لتبيننه وعدين إيسان للناس ددك آيات حقا يا كتابك يا نبي قبل نبي محمد وعدين إيسان ولا تكتمونه منقر إيسان فنبذوه way tuureen markaas kadib ballankii lagula ballamay waraa dhuhurihim dhabaradooda gadaashooday ka tuureen washtarow wayna iibsadeen bihi ballankii fulintiisii way ku iibsadeen thamanan dheef oo qaliilan yar fa bi'sa ma yashtaruuna waxay iibsadeen ayaa baas lahaaday waxaan ku soo guda jirnay tafsiirkii suuraddii ahayd aali cimraan meeshaan ilaahay wuxuu uga warramay subxaanahu wa tacaala ballan laga qaaday ahlu kitaabka iyo reer bani israa'iil oo kutubtii rusushii ayaga loo soo diray lagu soo dejiyey looga qaaday ballankaasoo ahaa inay rumaynayaan kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo dejiyey sida ilaahay u soo dejiyeyna ay u rumaynayaan dadkana ay sidaas uu kitaabku u soo degay u gaarsiinayaan sidoo kale wixii kitaabkooda loogu sheegay oo ah in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam la soo diri doono inay rumaynayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu yimaadana ay raacayaan dadkana ay xaqa u sheegayaan iyo nabigu inuu nabi ilaahay yahay kutubtii ilaahay uu soo dejiyey oo kitaabkan furqaana ka horreeyana nabigu inuu ku xusnaa calayhi salaatu wasalaam inay dadka u sheegayaan ballankiisaas ahaana reer bani israa'iil waa ay buriyeen waana ay beeniyeen ilaahay marka wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waid akhada allaahu ay wadkur xus nabi maxamedow id waqti akhada allaahu alla ou qaaday oo uu qabtay miithaaqa aladiina kuwii ballankoodii miithaaqna dhowr maraan soo marno waa ballanka lagu adkeeyo laba arrimood mid ka mid a dhaar ama lagu adkeeyo markhaatiyaal iyo goobjoogayaal wadkur xusad waqti akhada allaahu alla uu qaaday miithaaqa aladiina kuwii ballankoodii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey waa yahuud iyo nasaare maxaa lagula ballamay latubayinunnahu wallaahi waa caddaynaysaan lilnaasi dadka waa u caddaynaysaan damiirka latubayinunnahu ku jira kitaabkii lagu soo dejiyey waa loo celiyey nabiga nebi maxamedan calayhi salaatu wasalaam na waa loo celiyey yaanba hore loo sheegine marka kitaabkii laydinku soo dejiyey waa caddaynaysaan oo dadka u caddaynaysaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa caddaynaysaan oo dadka u caddaynaysaan oo u caddeeyaa layidhi walaa taktumuunahu mana qarinaysaan oo ha qarinina nabiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa iyo inuu xaq yahay iyo kitaabka qur-aanka oo nabiga lagu soo dejiyey xaqnimadiisa iyo kitaabkii adinka laydinku soo dejiyey xaqnimadiisa fanabaduuhu waa ay tuureen marka wixii lagula ballamay caddayntii kitaabka la cadday lahaa ayaga lagu soo dejiyey iyo caddayntii nabi maxamed la cadday lahaa calayhi salaatu wasalaam iyo caddayntii xaqa la cadday lahaaba waa ay tuureen waraa'a duhuurihim dhabaradooda gadaashooday ka tuureen gadaashooday ka xooreen oo shaygii waa ka fogaadeen waa ay ka tageen washtarow waana ku iibsadeen bihii shaygii la rabay inay caddeeyaan caddayntii kitaabka qur-aanka ay cadday lahaayeen xaqnimadiisa iyo nabiga nebadiisa calayhi salaatu wasalaam caddayntii cadday lahaayeen iyo kitaabkii lagu soo dejiyey rusushooda wixii ku yaalay caddayntii ay dadka u cadday lahaayeen waxay ku iibsadeen thamanan dheef oo qaliilan yar ayay ku iibsadeen wax walba oo xaqa lagu iibsadaahi intay rabaan hala ekaadeene adduunyadoo dhanba ha noqdeene waa thamanan qaliilan markii loo fiirsho waxa lagu bedesha si qofku diintiisu wixii ku bedeshee dheeftan yartaana waa wax ku saabsan ilaashiga ay ilaashanayaan jagooyinka iyo dhaqaalaha iyo adduunyada ka soo gelaya daba joogga iyo daba roorka iyaga la daba rooraayo
maxaa yeeley waxay isleeyihiin haddii aad caddaydaan xaqa oo aad sheegtaan nabigu inuu nabi ilaahay ya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam caamada idinku xidhan oo dhan waa idinka furane saldana diineedka aad haysataan oo dhan waa weynaysaan waxaad noqonaysaan dad dadka ka mid ah wixii xurmo laydiin hayay iyo ixtiraamna waxaa loo qaadaa ciddii adinku aad ammaantaan oo taskiyeedaan oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaashi marka ay waxaas ilaashanayaan iyo dheeftaas adduunyo ayay u diideen xaqii oy nabiga u qariyeen calayhi salaatu wasalaam ilaahay marka wuxuu yidhi fa bi'sa maa yashtaruuna waxay iibsadeen ayaa baas lahaaday oo xumaaday oo wax la iibsado u xumaaday oo ah dheef yar inay ku iibsadeen xaqi sheegiisa laa taxsabanna aladiina ha u malaynin nebi maxamed iyo cid walbow kuwii yafraxuuna ku farxaayay bimaa atow wixii ay la yimaadeen oy sameeyeen wayuxibuuna jeclaanayay an yuxmaduu in la ammaano bimaa lam yafcaluu waxaysa samaynin falaa taxsabannahum ha u malaynin kuwaas bimafaasatin inay yihiin boos looga badbaado min alcadaabi cadaabka walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab oo aliimun waxanuujiya aayaddan waxay leedahay laba sabab nusuul oo saxiixa midka koowaad wuxuu ku saabsan yahay yahuudiya nabigu calayhi salaatu wasalaam qaar ka mida u yeeray markaasuu nabigu wuxuu weydiiyey wax kitaabkoodii ku yeelay markaasay ka qariyeen waxayna ku farxeen qarintii ay qariyeen wixii kitaabkooda ku yeelay oo nabi maxamed uu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waxayna jeclaadeen waxaysa samayn in lagu ammaano markaasaa ilaahi subxaanahu watacaala aayaddan soo dejiyey laa taxsabanna aladiina yafraxuuna bimaa atow wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu falaa taxsabannahum bimafaasatin min alcadaabi walahum cadaabun aliim waxay kaloo aayaddu ku soo degtay niman munaafiqiin ahaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam duulaamadiisa ka haraayay cudurdaar la-aan kadibna markii nabigu calayhi salaatu wasalaam duulaanka ka yimaado ayay nabiga u imaanayaan dhaaray isla kala jeexayaan beena ah inay cudurdaara lahaayeen waa u cudurdaaraan nabiga calayhi salaatu wasalaam markaase waxay jeclaanayaan wixii ay sameeyeen oo xumaan ah oo kaharitaanka nabiga ah calayhi salaatu wasalaam iyo inaysa dagaaladii ka qayb qaadan duulaamaadkii aysa gelin dhanka kalena waxay jeclaanayaan waxyaabo aysa samaynin in lagu ammaanay jeclaanayaan wanaag aysa samaynin in lagu ammaanay jeclaanayaan guul aysa ka qayb qaadan meeshii lagu guulaysanayay in lagu ammaanay jeclaanayaan markaasaa ilahi wuxuu yidhi subxaanahu watacaala laa taxsabanna ha u malaynin nebi maxamed iyo cid walbow aladiina kuwii yafraxuuna ku farxaayay bimaa atow wixii ay la yimaadeen oo xumaan ah bimaa atow wixii ay sameeyeenna waa lagu fasiri karaa wixii ay sameeyeen oo ay falkiyeen oo xumaan ah kuwii ku farxaayey ha u malaynin oo wayuxibuuna jeclaanayay an yuxmaduu in la ammaano jeclaanayay bimaa lam yafcaluu waxaysa samaynna in lagu ammaano jeclaanayay xumaantii ay sameeyeen waa ku farxayaan wanaaggii sameeyeen maaha xumaantii ay sameeyeen ay ku farxayaan iyo nifaaqii iyo kaharitaankii nabiga ay ka hareen calayhi salaatu wasalaam duulaankiisii iyo qarintii nabiga calayhi salaatu wasalaam yahuuddu wixii nabigu weydiiyey ay ka qariyeen ayay ku farxayaan wayuxibuuna waxayna jecel yihiin islamarkaas an yuxmaduu in la ammaano bimaa lam yafcaluu waxaysa samaynin lagu ammaano wanaag aysa samaynin in lagu ammaanana waa jecel yihiin waa kii nabigu yidhi oo kale calayhi salaatu wasalaam almutashabbic bimaa lam yucطa ka laabisi thawbay zuurin qofka isku dherjiya ama iska muumuujiya waxaan la siinin oo nafti hafarkaahi waa ka laabisi thawbay zuurina nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba maro oo marobeenaad ah uusa isagu iska lahayn nin isku xaragaynayo ku xaragoonayo xihan oo kale wa falaa taxsabannahuma ilah yidhi kuwaas ha u malaynin saas ku sifaysan bimafaasatin inay ku sugan yihiin boos ay uga badbaadayaan min alcadaabi cadaabka uga badbaadayaan qiyaamaha inay cadaabka boos ay uga badbaadayaan qiyaamaha ay ku sugnaanayaan ha u malaynin ma ka badbaadayaan cadaabka haddayse cadaab ka badbaadin maxaa ku dhacaya walahum waxaan u sugnaaday cadaabun ayaa u sugnaaday oo aliimun waxanuujiya qofku marka inay macaasida ay ku faraxdahay waa musiibo qofku inay macsiyadu ay ka dhacdo ee ay ka walwasho ay ka walbahaarto oo ay ka naxdahi waa wax qofka bishaaro u ah qofkaasuna waa qof rajo leh oo soo dhow laakiin dhinaca kale haddii qofku macaasidii markay ku dhacdo ay macaasidii ku faraxdo qofkaasi waa qof galbaday waa dabayshaday qofkaas ilaahay soo aruuri
walahum waxaan u sugnaaday cadaabuna u sugnaaday oo aliimun waxanuujiya walilaahi alla keligii waxaa u sugnaaday mulku samaawaati boqortooyada samaawaadka iyo walardi boqortooyada dhulalka wallahu allana calaa kulli shayin shay walba dhammaantii qadiirun waa kii awooda hore waxaan usoo marnay yahuudi qaar ka mid ah oo yidhi ina allaha faqiirun wa naxnu aqniyaa ilahay marka subxaana wa tacaala meeshan wuxuu leeyahay hadalkaas soo suurtagal ku yahay ilaahayaaba waxaa u sugnaaday boqortooyada cirarka iyo dhulalka saa ilaahay faqiir ku yahay culamada qaar waxay dhahan radin la radinayo hadalkaas yahuudda ayaa ilaahay subxaana wa tacaala hadalkan u yidhi walilaahi alla keligii ayaa waxaa u sugnaaday mulku samaawaat samaawaadka boqortooyadooda iyo walardi dhulalka boqortooyadooda wallaahu allana calaa kulli shayin shay walba dhammaantii qadiirun waa kii karaa inna fii khalqi samaawaati abuuritaanka cirarka iyo walardi dhulalka abuuritaankooda iyo wakhtilaafi leyli iyo wannahaari habeenka iyo maalinta iskhilaafkooda la aayaatina ku sugan liulil albaabi ugu sugan alladiina ulul albaabki ayaa aayad ugu sugan yihiin yadkuruuna allaha alla xusaayay qiyaaman ayagoo taagtaagan wa qucuudan iyo ayagoo fadhiya iyo wacalaa junuubihim ayagoo dhinacyadooda ku dul sugan wayatafakkaruuna kuna fakarayo maskaxda uga shaqaysiinayay fii khalqi samaawaati cirarka abuurkooda iyo walardi dhulalka abuurkooda kadibna dhahaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow maa khalaqta ma ada abuurin haadaakan baatilan ciyaaru ma ada abuurin subxaanaka ilaah hufnaataade waad ka hufantaa wax walba oo nuqsaan ah ee faqinaa ilaahu naga ilaaliya cadaaba naari naarta cadaabkeeda rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow innaka adigu man tudkhili naara naarta ciddaad gelido faqad akhsaytahu ilaahu kaas waad hoojiday waa dullayday wamaa lidaalimiina daalimiintana uma sugnaanin min ansaarin cid u gargaartaahi rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow innana annagu samicnaa waan maqalnay munaadiyan mid dhawaaqay oo dhawaaqaya oo yeeraya oo yunaadi dadka ugu yeeraya liliimaani ay ilal iimaani iimaanka ugu yeeraya an aaminuu oo kule an aaminuu waa rumeeya birabbikum rabbigiin rumeeya fa aamannaa waa rumaynay rabbigeenow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow faqfir lanaa annaga noo dhaaf dunuubanaa dembiyadeenna wa kafir ilaahu qari oo astur cannaa xaggeenna sayi'aatina sayi'aadkeennana ilaahu naga tirtir wa tawafanaa ilaahuna oofso maca al abraari baariyaasha macoodana ilaahuna oofso rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow wa aatinaa nasii maa wacadtanaa wixii aad noo yaboohday ood noo ballanqaaday calaa rusulika iyo calaa alsinati rusulika carabada rusushaada aad noogu ballanqaaday walaa tukhsinaa ilaahu waana dullaynin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo innaka ilaahyu adugu laa tukhlifuu ma ka baxdid almiicaada ballanka inna fii khalqi samaawaati waalardi waاkhtilaafi leyli waannahaar halkan ilaa aakhirka suuradda nabigu calayhi salaatu wassalaam habeenkii markuu soo kaco mararka qaar waa akhri jiray sida cabdullahi bni cabbaasba ka sugnaatay wuxuu yidhi nabigan calayhi salaatu wassalaam habeenada ka mida la baryey habeenka xilligiisa dambe markii la joogo ayaa nabigu calayhi salaatu wassalaam soo fadhiistou yidhi kadibna cirkuu fiiriyey kadibna wuxuu akhriyey inna fii khalqi samaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waannahaari la aayaatin liuli lalbaab iyo aayadaha ka dambeeya salaatuleylkana nabigu calayhi salaatu wassalaam waa ku tukan jiray waana aayado cibro qaadasho fara badan oo ay ku sugan yihiin oo ay ku jiraan ilahay marka wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala inna fii khalqi samaawaati samaawaadka abuurkooda waxaa ku dhex sugan iyo walardi dhulalka abuurkooda la abuuray waxaa ku dhex sugan iyo wakhtilaafi alleyli waannahaari iyo habeenka iyo maalinta isweydaarashada ay isweydaaranayaan iyo iskhilaafka ay iskhilaafayaan oo mid tagaayo midka kalena uu imaanayo isbeddelka isbeddelayaan oo midba mar uu imaanayo midka kalena uu tagaayo iyo iskhilaafka ay isku khilaafsan yihiin xagga midabka oo midna uu madow yahay uu mugdi yahay midna uu cad yahay oo iftiin yahay iyo iskhilaafka ay isku khilaafayaan xagga cimilada oo midka miduu qabow yahay midka kalena uu yahay kulayl yahay la aayaatina ku sugan waxaasoo dhan aayado iyo calaamado awoodda alla daliil u ah yay ugu sugan yihiin laakiin aayado arrintaas liulil albaabi dadka ulul albaabka alalbaab waa jamcu lubbin waana caqliga dadka ulul cuquulka ah oo waxgaradka ah indheergaradka ah ayaa arrintaas aayado iyo cibro qaadasha ugu sugan yihiin indheergaradkii ayaa la sii sifeeyey markaasaa ilaahay wuxuu yidhi alladiina indheergaradkaasoo yadkuruuna allaha allah xusaayo subxaanahu wa tacaala qiyaaman ayagoo taagan wa qucuudan ayagoo kuwa fadhiya wa calaa junuubihim ayagoo dhinacyadooda ku dul sugan oo dhinacu jiifa
intaba allah xusaayaan subxaanahu wa tacaala. dadkaas ulul albaabka ilahi wuxuu ku sheegay subxaanahu wa tacaala inay yihiin kuwa mar walba ilaahay xusaaya. xaaladda qofkana bini aadamkaana saddex xaalo mid ka mida inuu ku sugan yahay ma ka bixi karo. inuu taagan yahay qofku, ama uu fadhiyo, ama uu jiifo, saddexdaas uu qofku ku sugan yahay. saddexda mid walba uu ku sugan yahay qofku ilaahay uu xusa. waa meeshii nabigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illaah, carabkaadu yuusa ka suulin inuu qoyan yahay oo uu ka qoyan yahay dikriga ilaahayna uu ka qoyan yahay subxaanahu wa tacaala. qofki marka hadduu taagan yahay allah xusay, hadduu fadhiyana allah xusaaya, hadduu jiifana ilaahay xusaaya subxaanahu wa tacaala, qofkaasi carabkiisu kama suulin inuu yahay mid qoyan oo dikriga ilaahay uu ka qoyan yahay subxaanahu wa tacaala. ulul albaabka marka sifooyinkooda saasaa ka mid a. waxaa kaloo la sheegay salaadda waxaa la yidhi hadday tuka tagaan say hadba u awoodaan u tukadaan salaadda, marnaba salaadda kama tagaanna waa laga wadahay dheheen aayadda. oo hadday awoodaan salaadda inay istaag ku tukadaan waa sidii la rabay, istaagay ku tukaayaan. hadday awoodi waayaan salaadda inay istaag ku tukadaanna waxay ku tukanayaan fadhigay ku tukanayaan. hadday awoodi waayaan salaadda inay fadhi ku tukadaanna ayagoo jiifay tukanayaan. fattaqullaha ma statactum, salaadu say kuu qabataa loo qalleeyaa hayley. wayatafakkaruuna waana ay ku fakarayaan oo maskaxday uga shaqaysiinayaan fii khalqi samaawaati, samaawaadka abuurkooda wax ku saabsan, iyo wal ardi dhulalka abuurkooda wax ku saabsan. maskaxday ka shaqaysiinayaan, waa fakarayaan, cirkay fiirinayaan, weynankiisa, xidigaha, qoraxda, bisha ayay kor u fiirinayaan, iyo daruuraha hehaabaya, cirkay dhulka inta u dhaxayda, dhulkay haddana fiirinayaan, iyo buuraha alla ku qotomiyey, iyo sida dhulka uu u fidsan yahay, iyo weynanka uu qabo. kadibna waxay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow maa khalaqta ma ada abuurin haadaa kan oo cir iyo dhul iyo makhluuqan weynanka badan ah baatilan ciyaar ciyaar ilaahu maada abuurin, iyo xigmad la-aan umaada abuurin. adoon wax xigmad ay wax dana aan ka lahayn sida mushrikiinta qaarkood ay aaminsan yihiin ilaahu cirarkan iyo dhulalkan maada abuurin. waxaan wax dan laga leeyahay wa haddii dadku adduunyadan wax uga dambeeya aysa jiri lahaynna cirarkan iyo dhulalkan abuurka la abuuray waxay ahaan lahaayeen wax bilaa xigmad ahoon dan dambe aan laga lahayn, iyo cabad iyo ciyaar ciyaar wax loo abuuray. ilaahina subxaanahu wa tacaala ciyaar ciyaar waa ka hufan yahay. rabbanaa yaa rabbanaa ilayhin maa khalaqta maada abuurin haadaa kan baatilan ay khalqan baatilan, abuur baatil ah oo ciyaar ciyaar ah. subxaanaka ilaahow adaa hufan oo nasahan, hufnaantaada iyo nasahnaantaada aad ka hufan tahay wax walba oo aan kuu qalmin ilaahayo. waxaas aan kuu qalminna waxaa ka mid a inaad cirarka iyo dhulalka iyo makhluuqa weyn aad u abuurto, ciyaar ciyaar aad u abuurto iyo bilaa xigmad. faqinaa ilaahow naga ilaali oo naga dhowr cadaaba naari, naarta cadaabkeeda ilaahu naga dhowray leey. waa ducaysteen, tugmadii sii wadaan ulul albaabki, markaasay ilaahay waxay ku celcelinayaan inay dhahaan rabbanaa yaa rabbanaa ay dhahaan. waxay dhaheen markaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow innaka adigu man tudkhili naara, qofkii aad naarta gelido faqad akhsaytahu, ilaahu kaas waa aad hoojiday, waa dulleyday, ee ilaahu kaas hanaga dhigin. wamaa lidaalimiina, daalimiintan uma sugnaanin min ansaarin, cid u gargaartaahi. iyo dadkaas aad ahlu naarka ka dhigtay ilaahu cid u gargaari kartaa ma jirto, ee ilaahayow kuwaas nagu darinay ka wadaan. rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow innanaa anagu samicnaa waa aan maqalnay munaadiyan, waxay ku tawasuleen wixii acmaal saalixaad ah oo ay sameeyeen iyo ajiibiddii ay ajiibeen ciddii ilaahay u soo diray ayaga u soo diray. markaase waxay dhaheen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow innanaa anagu ulul albaabihi oo muslimiinihi samicnaa waa aan maqalnay munaadiyan mid dhawaaqaay oo yunaadii dadka ugu yeeraaya liliimaani ay ilal iimaani, iimaanka dadka ugu yeeraaya, iyo dadku inay rumeeyaan wax walba oo waajib tahay in la rumeeyo dadka ugu yeeraaya. an aaminuu oo dadka ku leh an aaminuu ay bian aaminuu war rumeeya birabbikum rabbigiin rumeeya. kadibna maxaan samaynay dheheen fa aamannaa ilaahu waa rumaynay baaqii ninkaasi uu noo soo jeediyey. ciddaasina waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, iyo nebi walba oo ilaahay uu soo diray, iyo kitaabkii ilaahay uu soo dejiyey subxaanahu wa tacaala. fa aamannaa waa rumaynay ilaahayo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow marka faqfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa ilaahu dunuubteenna noo dhaaf, wa kafir astur oo qari cannaa xaggeenna oo ka tirtir sayi'aatinaa sayi'aadkeenna, wa tawafanaa ilaahu na oofso maca al abraari baariyaasha iyo dadka wan wanaagsan macooda ilaahu na oofso. qiyaamahana jannada meeshay ka galaan ilaahu naga geli. rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeno wa aatinaa nasii maa wacadtanaa wixii aad noo ballan qaaday calaa rusulika ay calaa alsinati rusulika, carabada rusushaada ilaahu wixii aad noogu ballan qaaday oo rusushaada aad noogu soo dhiibtay oo janno ilaahay ah oo barwaaqaa ilaahayu nasi.
walaa tukhzinaa ilaahow hanana dulaynin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo innaka ilaahayu adigu laa tukhlifu ma ka baxdid almiicaada ballanka kama baxdid fastajaaba lahum kadib waa uu ajiibay rabbuhum rabbigood annii wuxuuna ku yidhi annii ay biannii anigu laa utiicu ma dayacayo oo ma luminayo camala caamilin mid shaqeeya camalkiisa oo minkum adinka idinka mida oo min dakarin lab ka ahaaday oo unthaa ama dhadig ka ahaaday maxaa yeelay bacdukum gabalkiin min bacdin gabalka kalow ka ahaaday faladiina kuwii marka haajaruu hijrooday oo wa ukhrijuu la saaray min diyaarihim guryahoodana laga saaray oo wa uuduu la dhibay fii sabiilii aniga diintayda darteed loo dhibay jidkayga lagu dhibay oo waqaataluu dagaalamay oo waqutiluu la dilay la ukafiranna wallaahi waa dhaafaa kuwaasoo waa dhaafaa canhum xaggooda sayi'aatihim sayi'aadkooda waa ka tirtiraa wala udkhilannahum waana gelinaa jannaatin jannooyin oo tajrii ay qulqulayso min taxtiha hoosteeda al anhaaru webiyaal hawaaban xaal sheegaasu amaalmar yahay oo min cindi illaahi alla agtiisa ka ahaaday wallaahu ilaahayna cindahu agtiisa waxaa ahaaday xusnu thawaabi thawaab kii wanaagsanaa ayaa agtiisa allah ahaaday ulul albaabkii ducadoodii markii laga soo warramay iyo say allah u tuugeen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala gabagabadii wixii ilaahay uu ku ajiibay ilaahay ka warramay ilaahay marka wuxuu yidhi fastajaaba waa uu ajiibay lahum ulul albaabkii iyo dadkii mu'miniinta ahaa rabbuhum rabbigood waa ajiibo waa uu ka yeelay baryihii iyo tuugmadii muxuu yidhi annii ay biannii aniga allaahu laa utiicu ma dayacayo oo ma luminayo camala caamilin mid shaqeeya camalkiis oo minkum adinka idinka mida oo min dakarin labka ahaaday oo unthaa ama dhadig ah wuxuu raba ha ahaadee cid shaqaysatay oo wanaag shaqaysatay oo adinka idinka mida wanaagga u shaqaystay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala ma ka luminaayo waana ku amaalmarinaa bal intii u ahay waa looga badinaa lab ha ahaado ama dhadig ha ahaadee ilaahayna subxaanahu watacaala lab iyo dhadig waa u sinan yihiin kulligood waa addoommadii ilaahi subxaanahu watacaala ina akramakum cinda allaahi atqaakum waay maxaa yeelay bacdukum ilaahay wuxuu yidhi gabalkiin min bacdin gabal kalow ka ahaada labka iyo dhadiga aniga iguma kala fadli badnidin maxaa yeelay idinku waa isdhasheenbe labku dhadigow dhalay dhadiguna labkou dhalay faladiina kuwii haajaruu marka hijrooday waxaa marka laga warramay sifooyin wanaagsan oo dadka muslimiinta aha qaarkood ay ku sifoobeen iyo mu'miniinta kuwa sifooyinkaas ku sifoobay waxay leeyihiin markaasaa ilahay yidhi faladiina kuwii haajaruu hijrooday oo beledkoodii iyo waddankoodii iyo deegaankoodii ka tegay oo ilaahay dartii uga tegey oo wa ukhrijuu la saaray min diyaarihim deegaamadoodii oo guryahoodii laga saaray oo wa uuduu la dhibay fii sabiilii aniga jidkayga lagu dhibay qaaditaanka ay qaadayeen iyo diintayda darteed loo dhibay oo gaala u dhibtay oo waqaataluu dagaalamay oo gacmaha issaaran markay dagaalka lagu waajibiyey oo waqutiluu la dilay haddana dagaalkii lagu dilay la ukafiranna ilahi wuxuu yidhi subxaanahu watacaala kuwaas oo u dhaafa canhum xaggooda waa dhaafaa sayi'aatihim sayi'aadkoodii waa ka tirtira wala udkhilannahum waana aan gelinaa jannaatin jannooyin iyo aseendooyin tajrii ay qulqulayso dureerto min taxtiha hoosteeda aseendooyinka al anhaaru webiyaal ay qulqulayaan ay dureeraan al anhaaru webiyaal ay dureeraan hawaaban xaal shaygaas iyo jannadaas iyo webiyaashaas ay ahaadeen amaalmar min cindi illaahi alla agtiisa ka ahaaday wallaahu ilaahayna cindahu agtiisa waxaa ahaaday xusnu thawaabi thawaab kii wanaagsanaa ayaa agtiisa allah ahaaday subxaanahu watacaala amaalmarka wanaaggiisa ilaahay agtiisa ahaaday oo waa janno ilaahay subxaanahu watacaala iyo raalli ahaansha ilaahay subxaanahu watacaala darsigeennuna maanta halkaasa noo joogo wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclam wabillaahi التوفيق